Tropical Hotel and Restaurant waa hotel haddana waa deegaan isku darsaday qurux bilic soo jiidasho leh waxa uu u samaysan yahay qaab casri ah waxa laga helayaa agab kasta oo u baahato sida beeraha dalxiiska loogu talagalay iyo goobo nasiino oo qurux badan waxa ku yaalo dhir caraf udgoon in daraandar leh oo aad u qurux badan waxaana loo diyaariyay bulshada ku nool Muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo dadka qurbaha ka yimid inay xilliyadooda nasiinada ku qaataan jawi degan isagoo loogu diyaariyay guryo deegaan ah kuwaas oo ka kooban single iyo double sidoo kale waxaad ka helaysaa alaabadii daruuriga u ahaa nolosha qoyska waa kan milkiilaha hotelka Maxamed Cali Jiisow oo sharaxaad ka bixinaya taariikhda la aasaasay iyo jeedka loo aasaasay hotelkan waxaan idinku soo dhaweynayaa Tropical Village Hotel and Resort oo ku yaala degmada Daynile ee suburbiska magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan ma aragtay si kooban aan idinku sheego taariikhda Tropical Village Hotel. Tropical Village Hotel dhismihiisa iyo qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay sanadka 1999 ilaa maantadan la joogo oo aan ma aragtay ku hayno renovation iyo ma aragtay iyo dib u habeyn iyo wax waliba marka waxaan rabaa inaan idin raado wax waliba adduunka ma aragtay qurxoon ama wanaagsan waxay u baahan yihiin waqti marka waxaan rabaa inaan idin sheego Tropical Village waqti ay qaadatay sida ogtiin waxa la Rome was not built in a day Rome laguma dhisin hal maalin Tropical Village asaasoo kale marka waxaan jeclahay in jamhuuriyadda Tropical Village waa hotelka ugu baaxadda weyn oo maanta jira way marka waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo Tropical Village tan kale waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo dhammaan Soomaalida diasporada ku nool ee jecel wadankooda inay ku soo laabtaan in ay mudnaanta siiyaan wadankooda haddaadan adiga aadan imaan dalkaaga oo aadan dhisin cid kale ku imaanayso oo ku dhisaysa ma jirto marka waxaan idin leeyahay mudnaanta dalka leh hotelkan ayaa ka kooban qaybta VIP-da qaybta nasashada qaybta jiifka qaybta cuntada qaybta baakinka baabuurta qaybta dabaasha qaybta fardaha hoolka shirarka ama xafladaha sida aroosyada dhalashada sagootinta iyo soo dhaweynta kaasoo si caalami ah loogu qalabeeyay waxaana kugu diyaar ah goob VIP ah oo loogu talagalay in lagu qurxiyo hablaha kuwa arooska ah hoolkan gudihiisa waxaa kugu diyaar ah mixerkii iyo samaacadihii DJ gacmo fudud kaamiradii oo ka kooban sawir qaade iyo fiidiyoo duube waa hotel nuuciisa oo kale ah ku cusub yahay dalka laga hirgeliyay degmada Daynile ee gobolka Banaadir Maxamed Cali Jiisow ayaa ah shakhsiga kaliya ee ku dhiiraday Daynile oo dhacda cirifka magaalada Muqdisho in uu ka hirgeliyo hotel casri ah kaasi oo laga heli karo dhammaan adeegyada kala duwan ee hoteelada dunida ay u qabtaan bulshada qayb weyn ka qaatay soo celinta bilicda degmada Daynile isagoo ku soo kordhiyay in uu ka sameeyo goobo lagu beeray qudaarta noocyadeeda kala duwan ugu dambeyn Maxamed Cali Jiisow ayaa ugu baaqay dadka qurba joogta ah in ay maalgashtaan wadankooda si ay u soo celiyaan bilicda wadankooda hooyo Kenya iyo Turkey dadkeeda ayaa dhistay iyo Dubai marka Soomaalida waxaan ku dhiirigelinayaa diasporada ku nool in ay dalka yimaadaan oo ay dalkooda ku sameeyaan maalgelin investment inay ku sameeyaan dalkooda marka taana waxa way dhiirigelin aan u jeedinayo dadka diasporada ku nool jecel in ay dalkooda ay yimaadaan inuu dalku yahay dal fiican laakiin uu fiicnaan karo oo kaliya haddii aad adiga mudnaanta siiso dalku wuxuu noqonayaa dal fiican marka taana maartay waa dhiirigelin aan u soo jeedinayo Soomaalida diasporada ku nool tan kale waxaan rabaa inaan idin sheego Hotel Tropical Village waa hotel weyn iyo resort wuxuu leeyahay meel ay carruurta ay ku dheelaan dadka hooyooyinka iyo aabayaasha ay ku sheekaystaan dhalinyaradu ay ku sheekaysato oo ay waqti fiican ay ku qaataan at the same time carruurta ay
يعني كهلان وحيابها اللي قد له يكو عياران وعروته لو يقان amusement park لو يقان إن كهليسان tropical village waxaad kaloo ka helaysaan cunno heer sare ah oo international cuisine ama traditional Somali waxa la yiraahdo yani Soomaalida wixii yani cunnadii nugula yaqiinay Soomaali ahaan iyo tii international ka ah oo cuisine oo yani disheski ahaa international ka ah labadaba waad ka helaysaa marka waxaad kaloo aad ka helaysaa jiif aad u wanaagsan oo raaxo leh waxaad kaloo jira guryo ah furnished guryaha loo yaqaan ama guryo firaashan ee wax walba ay u dhan yihiin oo qofka uu la imaanayo oo kaliya boorsadiisa kitchenka waa fully equipped yani wax ka maqani ma jirto dishwasher haddii ilaahay ku roon yahay maaragtay washer dryer ama kuwa dharka ay ku dhaqan lahaayeen television AC wax walba oo dhan yihiin qofku waxa uu imaanayaa intuu rabo maalmood uu joogaya kadibna airportku ka aaday ama meeshu ka aaday marka waa yani waxaan ugu talagalnay dadka yani diasporada ka imaanaya ee jecel dalka inay joogaan 2 isbuuc ama bil ama 2 ayaan doonayn inay yani furniture soo iibsadaan hadhowna yani furniture-ki يعني ميل أي جيان وين لها يعني أقول تلاقلنا إن أن ما عرفت أن كسر وينه